waxaan rabaa in aan u tacsiyeeyo familka walaalaheen oo maanta laga geeriyooday runaantii familkaas ka geeriyooday laakiin reer Mandheera dhan ayaa ka geeriyooday gacan oo dulun ah ayaa isku dhintay ninka walaalkeen Hashim oo maanta asaga iyo nin walaalkiisa oo la midiyay la bilaabeeyay isagana u dhintay Hashim walaalkiisna hadda isbitaal ku jiro waxaan rajaynaynaa insha Allah Jamaal in uu ka kabsan doono ka soo bixi doono inkasta oo aad iyo aad loo bilaabay isaga laftiisa marka tolka iyo qaraabada iyo reer Mandheera waxaan leenahay ninka walaalkeena hal cafiyo oo geeriyooday ninkan hadda xanuunsan walaalkiisa ahna asagana ha loo soo duceeyo in Ilaahay fududeeyo waxa kale oo leenahay ninka daalimka ah iyo gurubkan daalimka hal kaliya ma liigu yiri insha Allah ayagana waa lagu daba jiraa dawladda ayaa ku daba jirto waa la soo qaban doonaa mudankiisana insha Allah waa la marin doonaa markaan insha Allah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun alleen xaaladdiis caafimaad maxaa lagaaga sheegay runaantii dhakhtarka ayaan hadda la kulmay dhakhtarka gacanta ku haya rajo fiican ayuu noo muujiyay in insha Allah aad ka soo kabsan doono qadarta Ilaahay waa gooni laakiin inuu ka soo kabsan doono insha Allah kulay waa feeraha meelahaas laga madiyay waxayna u egtahay inuu ka soo kabsan doono insha Allah qofkii kaalmeyn kara oo dhiig loo baahdo umana in loo baahdo doono insha Allah ayagana inaan kaalmeyn karno ayaan isku day doono